meaningful talk مرة ما حد أنا قبلها حتى وحام أنا قربا إنا وصلنا حد وحنا كتبيه because أظن أول موسيقينا الوقت هذا retirement الجاري وإما قلام مرة بانو دقي سنة أنا جو خوين دهاي ما تحصل حاجة ما تقنا أبس إنا لقبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalayaal waa walaashiina Sucaad Nuur aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa saa ii soo dhaweyseen saa xaq ugu istaagteen saa u difaacdeen diinteena saa aad dulmiga uga soo horjeesateen saa u siiseen walaasheena nacimo garab saa aa u aragteen dulmiga meesha ka socdo iyo fitanta meesha ka socoto u go'aansateen oo idinkana inaad toosho ku ifisiin oo anagana garab nagu siisiin jazakumullahu khair ka aan gacan isqabsano aan kulligeena u dafaacno kalimatullahi al-ulya iyo diinteena وكامل كسو دغتي ان الدين عند الله الاسلام الله سو جزاكم الله خير إذا دا فيديو مكو داهاي وانا ina maqtac yar la duubo waxa idin sheer gareena marka dadka dulmiga wato ee dadka fasahaad wato ilaaha fashilaayo ilaaha xaq soo bixinayo fashilaayo markaana ilaaha soo muujinayo inay waxay ajandadooda tahay ee wixii ay u dagaalamayaan inay ahayn xaq laakiin inay tahay danaysi iyo hawa nafsi iyo wax qof u maleeyo waxa laga yaabaa some of them inay xaq u maleeyaan xaq ku taagan yihiin inay misinformation kaas ay faafinayaan u maleeyaan inay wax ku difaacayaan some of them waxa way agenda kale ku leeyihiin waxa way view iyo lacagtaas laga sameeynaa social media whether TikTok ha ahaato whether Facebook TikTok ha ahaato whether Facebook YouTube ha ahaato mise whether grants lacagta organization lacag looga qaadanayo ila marka aad gabar muslim ah oo xijaaban soo istaagto ay dhahdo mujtamaciga awareness u sameeyna women empowerment aan sameeyna din culture-kayga abuse dadku ku hayso woman ku hayso aan dulmiga ka qaada ay la soo istaagto there is a lot of opportunity ku jirto run hadii la isku sheegin organization ka sameyn karta oo grant ku siinayaan lacag kugu support gareynayaan oo rabaan inay support gareeyaan waxyaabahaas ay empowerment-gaas through women empowerment iyo victim whatever you want to call it waxyaabaha rabo in la dhaho taasoo marka anaga mana anficaysaa way yes dadkan how can we utilize wal isticmaal kara waxyaabahaas hadii si khayr loo isticmaalayo laakiin hadii si shar loo isticmaalayo waxa ka imaanaya fitan waxa ka imaanaya dalaal waxa ka imaanaya in qofkii hawaagiisa iyo naftiisa iyo danihiisa lacageed iyo danihiisa oo financial whether it's financial mise personal mise status la una dawakaca oo xaqii ka jeesto oo wixii westernized ahay mise wixii xumaa u maleeyo xaq wixii oo diintii iyo sunnada marjac looga dhigaayana oo u maleeyo wax taqadum ah wax laga soo tagay wax oo sanooyin ka hor ahaayeen jireen oo hadda shaqeynayeen sida dadka qaarkood ay ku antacodaan ayagoo u maleeyo inay faafinayaan xaqa so maanta waxaan haystaa maadaama aan Fadxiya Cabsi aan ka hadalnay oo aan Facebook u finay waxa of course ay soo gelisay channelkeeda gabar la dhaho Shamso oo hadda koorna aniga aan maqlay oo waxyaabo badan aan ka fiirsan laakiin lately arkay couple times 2 mar miya 3 mar aan waxaan ku arkay TikTok mar dhawaab TikTok ani samaystay reason ka u samaysan TikTok waxay ahayd inaan arko fitnada ka jirto aniga awoodeyda wixii ay awoodo ka shakhsi ahaan with my own busy schedule-kayga aniga marka xaqa أنا شبك أنين كوز واحد كسدي شب لقى ده وحال أركي مجتمعين كان وحياة شب تمر كلا لقى ده وحاسو بدنا يسوي باور جريسناي إلا ضدك في عناه ده شب دهان ضدك حق باطل كوكو سعودي مصدقك ميس إنفورميشن كسبرد جرينا إلا هدي ما أنت أي هدلان وحاك بدنا إن السكو وريرو قفكي حق كوكو سعودي إلا فه لكن قفكي باطل كمسوي ميس إنفورميشن سمينا يعني إن لو ملا قف حق إيو ملا محل يجرين إن وحفي عن فافينا أو قرب لقصيو taas ay maaneys marka waa in la istaagaa aan naga helaa dad badan oo consistently are in it for difaaca diinta for in if you xaqa lacala wacsa anaga dhan ilaahay inuu noogu gargaaro oo hidaayada noo fududeeyo oo nagu thabatiyo siraatal mustaqiim ya rabbi ya raxmaan soo gabadhan Shamso la dhahay waxay spread garaysaa inay إذا روش جزمة إذا كور دعي I'm just gonna play the إذا شيء مقطع فيديو أو حركة كذا then وأسلف لقيننا then وأستأجنا وحنا كذا وأسلف لقيننا
haddii la isoo blogreeyo youtube-ka laiga baxsadana ogaada waa eedaa u sababa ila inuu ma handle garayn karta iyadii fatxi cabsiyaba ma handle garayn karaan criticism ma handle garayn karaan qof kasoo horjeedo iyaga ra'yi kasoo horjeedo haddii wax kasoo qaadato mise informationkooda video iyaga soo geliyeen aa soo falanqeyso waxaa waaye yaa weylak so taas daraaddeed waxaan u sameeyey facebook page aan sameeyey please facebook page ay follow dhaha lacalo cas haddii janaalka la iga xiro inaan facebook iskala xiriirno markaan jalaal cusub aan samaysto ilaa ani waa sameynaa lama istaagay biizni illahi alcadiim ma istaagani janaalka aan soo geliyo oo uga hadlaayo fitnadan diinta lagu wado oo dadkaan rabaan inay diinta iyo shuyuukhda iyo wixii resourciga oo laga heli lahaa xaqa dhan inay ka dhigaan wax baatil ah iyo wax shaki ku jiro waxaan idin dhihi lahay videoada qaata free u tihiin copyright ma laha qofkii raba ha faafiyo channelkiisa ha gashto no copyright ani lacag kama samaynayo mana raba inaan lacag ka sameeyo qofkii garab igu siinaya igu support garaynaya channel kusoo baara igu soo join garaynaya jazaakum allahu khair kas dhiirigelin ay siinaysaa waxa ay siinaysaa cod dadka commented actively ka ah oo commented reply-ga sameynaya oo commentiga igu garab igu siinaya xaqa ka hadlaya jazaakum allahu khair ani especially gabar nuul la dhaho jazakallahu khair ilaahay ashari xasanad ha ka siiyo waqtiga aad gelisay commented jazaakum allahu khair so videogan shida waxyaraan shida waxay leedahay marka videogan wuxuu cadeynaa ajandada ay gabadhan iyada afkeeda ku dhahday ay ka leedahay iyada iyo dadka iyada la mid ah we don't know each one anaga dan why laakiin iyada waxay dhahday specifically aan sameyno waxaan ay sameynayso bal ila dhageysta waxay dhahday this is the reason so what is the reason ay usoo gashay social media maxay ka rabtaa maxay faafinaysaa maxay ajandadeeda tahay maxay ereyga qoyan u isticmaashaa xaguu ka imaaday maxay ka aaminsan tahay ereyga qoyan ila dhageysta please si fiican ila dhageysta danadaheena aan ku kor wadano danaheena anagoo ku kor wadanayna hadda gabar oo reerkuweed ahayd muna doctor muna ashri ayagoo saas iyo caayaya aan PhD ku qaatay marka waxaa fiican mataqaana danaheena anagoo wadano waatuu kii caayay igu lahay habartaaseeto eere qaadataa habartaas bal ma iyaqaan bal hadda dembigaas ilaahay dembisa uma qorayo halkuu ku arka meela ceer ku qaato so waxaan ku baranayna waa ku shaqaysanayna ayagoo oo weli meeshooda fadhiya basementkooda oo ku shaqaysanayna daamis macag lacag ku shaqaysanayna hana imaatay abaayada kale meesha ku jirta karaal cajaa'ib the behavior just shocked me wallahi I'm like no, what the hell is over meaningful talk marra baan hadda aniga gabdhaheena hadda waxaan aniga rabaa inaan sameeyo hadda waxaan ka dambeeyo because odayga awal uu shaqaynayo mogta hadda retirement uu gaaray uu imaqlaa mar walba anoo dhagaysanayo anigoo qoyan dhahaayo marka hadda waxaan rabaa mataqaana opposite inaan la qabo hadda waxaan rabaa inaan gabdhaha wrong oo wax loo sheegi karo inaan positive messagekeyga ku ekaado qoyanna iska bloggareeyo qoyan wax uma jeedo wax ma aragto wax ma maqasho wax ma fahamto waxaan ka qaban kara ma jid qoyan ani igu mashquul okay waa istaajinaa so waxay dhahday hadda waxaan rabaa meaningful conversation ma rabaan idhaad meaningful talk ma rabaan gabdhaha soomaalida muran iyo waxay rabaan lay attack inay aniga attack gareeyaan ay rabaan in si fiican ay ra'yigooda usoo baxsadaan ay la doodaan ma rabaan idhaad pointigood waxay kaloo dhahday waxay rabtaa ajando cusub inay noo sheegtay iyada afkeeda ka sheegtay ilaaha kasoo bixiyey waxay dhahday ani hadda qorshe cusub aan qabaa maadaama ninkeeda guriga soo fadhiistay ninkeeda ay ilaalinaysaa emotionkiisa ninkeeda hortiisa qoyan kuma dhihi karto maybe ninkeeda ka baqaysaa naagaha kalena waxay dhehaysaa mise gabdhaha kale waxay leedahay ninkaaga ka baqin oo friya tahay xuraa tahay waxaa rabta shamay laakiin iyada ninkeeda ka baqaysaa she can say qoyan in front of her husband she can't say qoyan in front of her husband she's ashamed ingiriisku waxaa u isticmaalaa because I want gabdhaha yaryar inay fahmaan waxa aan ka hadlayo because some people si fiican uma fahmayaan maaha ina aan iska aan ku darsanayo ingiriiska ila qatar ila yahay laakiin waxaan rabaa in dad messagekeyga both language noqdo dadka specific point aan raba inaan cadaayo inay ila fahmaan taasaan u use ganaya ingiriishka especially lately so waxay leedahay qoyan markaan dhahayo maadaama ninkeyga shaqayn jiray awal guriga ma joogin mise africa jiray whatever place hadda laakiin guriga kusoo laabtay retirement uu noqday maadaama ninkeyga markaa aan dhageysanayo fatxi cabsiya mise gabdhaha kaleeto oo qoyan 24/7 ku dikriyaan
oo imaqlo mise aniga markaa aan dhahay life soo galo oo qoyan anoo isticmaalayno ninkeyga waxay tiri wuu ila yaaba shago wuu ka xanaaqaa saas daraadeed maadaama hadda ninkay guriga uu joogo oo retirement noqday oo ma shaqeynaya retirement waxaa laga yaabaa qofka marka guriga soo fadhiisto maxaan rabaa in aan bedelo ajandadayda inta iima shaqeynayso ninkeyga iyo inaan problem iskaga sameeyo maraba guriga iska haleeyo oo mashaakil iga imaado in guriga iska dumiso ma rabto inay qoyan ninkeed horteeda ku dhaal ma rabto because waxay ogtahay ereyga qoyan inuu qalad yahay aan comfortable kuma ahan laakiin way use garaynaysaa markuu asaga joogin ma use garaynayso free waaye حر واye laakiin anyways whatever so just I want to pay attention to that how she's considering her husband's feelings iyo agtiisa markay jirto which is beautiful wax xun ma ahan ma diidanin laakiin dadka kale u sheekeen fariya ahaa iyo waxaa rabtaa samayn kartaa iyo qof lagu xukumi karo iyo waxaa rabtaa dhihi kartaa hadhiin maadaama adiga ninkaa ka baqay sida hortiisa ku dhihi karin qoyan aa rabtid inaa ajandadaada bedeshid hadda specifically small group oo inta ku sacabtumayso qoyanta ku raaxaysanayso iyada isku malayaan inaa adiga wax xaqa ku taagan tahay bas inaa meel kusoo aruursatid ayaga marka aa maalin walba u digrisid mise ayada u maxaadaraysid mise ayada waxaa rabtid ka dhaadhacsiisid ee wax ku baadargaynaya lihiin qof aan wax kugu soo celinaya jirin qof walba sax waa saxantaa iyo hore u soco habreer lagu dhahaa bas intaas rabtaa laakiin ma rabtid dad in oo mujtamac dhan aa gaartid messagekaagii dadka spread gareeyo ma rabtid in lagu challenge gareeyo ma rabtid in lagaa soo horjeesto ra'yi comment lagu soo qoro wixii iisoo gal waxay dhad waa blog garaynaa laakiin inta qoyan ila aaminsan mise waxaan waa positive hater erey qoyan iska dhaafa waxaa leeyahay gabdhaha hala empower gareeyo gabaray isfiicanay gabaray yani positive messagekeygaan bedela ajandadeedaan bedela message markaan bedelo marka gabdhaha inay iisoo imaanayaan maadaama aan waxyaabaha xunxun aan dhahaya qoyintaan dhahaya iska dhaafo sida la igu aamino marka group aan u samaysto positive noqdo quote unquote positive waxay u noqonaysaa because of her husband retirement noqday guriga joogo ma rabto inay hortayso ay ku isticmaasho qoyin oo problem uga soo gaaro marriagekeeda okay ku socdo marka gabadha kale ilaha khayr ha siiyo u jawaabtay I really like it inay kasoo horjeedo I don't know much about her gabadha kaleeto laakiin waxaa u jeedaa qof knows herself and also knows how to manage her own emotions so dadka qaarkood ma aha weli ayagoo emotionkoodaba controli karin they don't even know how to manage their emotions rabaan inay dad kala bedelaan ay nin iyo whatever so called dulaysti ay wax u sheegaan when they can't even manage their own emotions habar baa tahay ukhtaa tahay kanaa tahay anay igu mashquulsan tahay qoyan waxaan ka qaban kara ma jiro qoyan waa ka dhaafeena that's very degrading name habaryar waan ii fasiray maya fatxiyaa la hadlay waan ii fasiray habaryar kama wado qoyanka hoosta lagama wado qalbigeeda ma aragti moralkeeda deerti away yani igu tir anaa waxaan ku yiri ma because odagayga yiri what markaasaa weydi waxaan dhahay saas markaasay tiri no meeshaas ayagaa u fasira mooyaane anaka meeshaas kama wadno marka waxa weeyaan akhlaaqdeeda qoyan akhlaaqdeedan farxiya macalinkeeda waxay leedahay farxiya weydiiyey wixii la dhaha la ida raacaysaa wixii farxiya dhahdo ereyga farxiya soo samaysa layda raacaysaa so waxay leedahay no questioning that's why khatarta u tahay saaxiibku xun mise qofka dabaraacdid without questioning waxay samayn wayaan inay qalad yihiin aad criticize garaynayn sida gabadhan kaleeto actively analyze garaynayso waxaan macquul ma aha ereygaa ma isticmaali karay ma jirto waxay ku leedahay fatxiya weydiiyey even though she feels this doesn't make sense fatxiya weydiisay waxaa lahay saas lagama wado waxaa laga wadaa qoyanta hoos lagama wada inay ka qoyanta waxaa laga wadaa astaghfirullah yani sorry about that language but I have to clarify waxaa laga wadaa qoyanta maskaxda as though there is a difference between the body maskaxda laga wadaa maskaxday ka qoyanta maskaxday eber ka tahay maskaxday akhlaaqday eber ka tahay akhlaaq ma lahan akhlaaqday ka qoyan tahay maskaxday ka qoyan tahay taasaa laga wadaa hadda saas ma dhihino saasay hadda noogu definitionkaasayna siisay after a little bit definitionka uu isbedelaa si fiican u dhegeysta after macnaha ay u samaysay uu isbedelaa ilaha ilana kasoo bixinoy the good thing in proofka la haysta so ila dhegeysta I'm just gonna put the codka waxa aad ka aragtiin dirty akhlaaqdeeda clean ahayn marka waaba ka dhaafeenaaba bikmin maxaan dhahnaa waayahay habariga kuwaa nagu dhegan anag
Aba smoke ala da smoke theory. Xumaan kama aha habareen macaan. Xumaan kama aha. She doesn't know what's good for her. She doesn't know what's bad for her. Ma fahmino. Xitaa wixii laga wado markii la fasiro habareen. Ani markaan maqlo magacaas automatically waxba ay sawiran. And I feel like inay tahay very degrading to women. Xagka meeshaas kama wadno. marka waxa weeyaan akhlaaqdeeda qoyan akhlaaqdeeda dirty ah akhlaaqdeeda clean ahayn marka waaba ka dhaafeenaaba big men maxaan dhahnaa waayahay habariga kuwaa nagu dhegan anag aba smoke theory xumaan kama aha habareen macaan xumaan kama aha she doesn't know what's good for her she doesn't know what's bad for her ma fahmino xitaa wixii laga wado markii la fasiro habareen ani markaan maqlo magacaas automatically waxba ay sawiran and I feel like inay tahay very degrading to women حتى odayga wax afka ka soo baxay tahay oo dhaay waa run wallahi ma fiicna habareen macaan because ma dhihi karno waxbaan saxeena anaga waxaan sii haqaleynayno no matter how angry we are I would never qoyan way u adag tahay gabar Soomaaliyeed inaan buuxo waxa waaye waa smoke ma oga maxaa la waxa u roon waxa meesha dhibka uga socdo ma rabta inay isbedesho and I don't even blame them because waxa habariyad waxa years of social conditioning years and to change these habits about the damage ku gaarsiinayso waa iskaga dhaafi lahayn bay adiga maanta oo ku dabagalnay ku soo raacaysa carruurtaadii iyo musawiradaadii qaadanaysa ileen diin baan difaacaya bay ku leedahay carab dheer bay leedahay waxa weeye si wax lagu sameeyo ma jirto habar yar amaan ku siin mayso kuma jeclo amaana ku siin mayso maxaa samaynaynaa haddaad ina cabtaa banaankaas iga ani qofkaan rabin baloogan ku lejiya so the only reason ee qoyan loo soo bixiyo waxaa waa in lagu shubdhehaysiiyo or in silent laga dhigo gabdhaha diinta diintooda difaacaya oo rabaan markay arkaan baatilka markay arkaan waxyaaba doesn't make sense oo misinformation la spread garayna hate disempowerment inay kasoo horjeestaan ay dhahaan no this is unacceptable this is not the way wax lagu bedelayo we all accept we all waa isku raacsannaha in communitygeena oo u baahan yahay a lot of things oo healing iyo self awareness iyo waxyaabo badan isbedel badan inuu u baahan yahay oo isbedel fiican isbedel kitaabka iyo sunnada ku beestagraysan inuu u baahan yahay waa ognahay laakiin uma baahnin isbedel oo dad benefit ugu jiro isbedel oo to the worst isbedel on bias isbedel xumaan wato uma baahnin one side only oo dadka kaleeto silent laga dhigayo TikTok dadka ku jira qofka comment soo qor muuda la gelinaa 24/7 qofka mood hadaa question weydiisid hadaa comment soo qortid muuda lagu gelinaa mas waa lagu tuuraa bloga lagu saaraa qofka daciifka qofka baqaaya waxay sheegaysaa taas inuuna ogolaan karin aan accept gareyn karin laga soo hor imaado qofka xaq ku taagan ma ku tuuraayo I happen to be in this life kana ku jirani I can show you I was pictures or something waa idiin soo gelin karaa life kana ku jiray as soon as I write down waxaan qoray labeling iyo blaming is not empowering at all aan qoray marka intaas qoray dhag waa la tuuray waxaa waayo waa mute la igeliyo or whatever waa blog la igeliyo life kana waa la iga tuuray all I said waa ii dhahay waxa wax fiican ma ahan they were agreeing to it and I came to the life I happened to be in the life actually as soon as I wrote down yes that's right يعني labeling and blaming is not empowering at all empowerment ma ahan dhag waa la tuuray maxay sheegaysaa waxa waa in laga soo horjeedo dadka xaqa sheegaya laakiin ilaa adiga waxaa wadaday wax sax yihiin waxaa haday xaq yihiin hadaa ogtahay meesha dadka u wada inay meel saxan tahay qof wax kuu soo qoray oonan ku disrespect garaynin just challenging your thought or your point of view ilaa meesha adaa public ka dhigatay life soo gashay ma ahan adiga qof kuma haysto hadda adiga you're minding your own business noloshaada saabta ugu noolaaw nobody's business ma ahan
لكن أنا public soo gashay you're trying to be an activist you're trying to be maxaa la dhihi jiray somebody oo wax impact sameynayo oo community improve gareynayo oo dad follow badan raadsanayo oo dad badan ku xiran yihiin oo life dad usoo galo qofkaas kale waa inuu ogolaado space dadka inuu siiyo waayo dadka oppositekiisa ah dadka respectful oo ula hadlayo dialogue meaningful waxay dhahdeen kooda meaningful talk ma rabaan qofkii meaningful talk u qoran waa la blog garaynaa that's why looga blog garay I think so because haddii qof kasta aa silent garaynaysid maybe that's the TikTok's rules if you silent everybody that's not gonna work maxaa meesha ku haysaa hate speech baan ku haysaa why you're silencing everybody why threat kugu naqanayo dadka why everybody becomes a threat if they comment markay soo qoraan waa sheegtay qoyan waxaa dhahday diinay kuu soo baxsanaysaa that's why qoyan aha maxaa kale ugu wacnaa waxay maalin walba ay akhrinayso ma aaminsano mana believe garaysno laakiin fatxii cabsi aa dhahday way soo qaadanaysaa way sii faafinaysaa wayna ka dhuumanaysaa ninkeeda iyo whatever dadka respect garaynaysa hortooda kuma dhihi karto waxay rabtaa hadda inay message ka bedesho mawduuc cusub iyo ajendo cusub ilaa waxay aragtay sheekada inay soconaynin qoyan inay soconaynin aragtay and it doesn't work people are becoming more aware of it it's disrespecting disempowering nobody change rabo inuu sameeyo positive change will never labeling maalinaan ka hadlaa labeling iyo maxaa la dhihi jiray blaming others iyo dadka kale in laga dhigo they are the problem histories years and years waxa dadka lagu abuse garaynayo oppression lagu sameynayo in qofkii magac loo bixiyo in qofkii oo othering lagu sameeyo waa wax laga soo daalay hadda ay gabdhaheena Soomaalida ay hadda awareness ay hadda ay barteen ay hadda ay rabaan inay use garayaan that doesn't work 2022 ma shaqeynaysaas anagana waa ogsoonahay waana ka soo horjeedaynaa man isticmaalaysid hanagu use garayning magaca diinta iyo inaad diinta fidanaysid diinta waxaa rabtid le ka sheegaysid wax kalena ka qaadanaynin diinta kaamil waay kulligeeda la qaadanaa mas'uul waa la iska dhaafaa ma ahan halfway half ma ahan you don't spread you do whatever you do kaligaa markaa taa gurigaaga joogtid oo aad social media activist ka naqanin laakiin hadda activist naqanayso ummad islaam activist rabtid inaad u naqatid waa inaa xaqa iyo wixii oo sunnada iyo kitaabka ku samaysan aa sheegtaa laakiin hala wixii nafteeda iyo hawadeyda iyo si aan rabo leh u fasirayo xadiiskii aayadda saa rabtaa u fasirana xadiis maba jiraba aa leedahay subxaan allah fitnataas ka weyn maaha waa ogtahay ileen qof walba inner voice oo leeyahay wixii qalad ah gadkaagii wuu kuu sheegaa wixii qalad ah wixii sax ah iyo inner feelingkaagii iyo inner voicekaagii iyo gut feelingkaagii wuxuu ku dhahayaa qoyan is unacceptable to call another sister qoyan waa wax laga xishoodo oo qof dhan oo marwo ah mother ah gabdha rays garaynayso iyo wilal oo dhan how many children ay qabtaan wallahi ma ogi ma kasay gabadha ma dhawaan arkay laakiin qof dhan oo maamo ah shay sheegtay gabdhay qabtaa gabdhahay idoo dhaysa arkay so qof dhan oo maamo ah oo rabto inay empowerment samayso message noola deliver garaynaysa qoyan xataa hadday enemy-ga tahay you human respect yourself adiga naftaada inaad respected as well waxaa marka aan u mahadinina aan congrats dhaha gabadha kale leen ku jirtay Rawda Xuseen saas allah magaceeda Rawda Xuseen aan umaleynaa xasan gabadhaas waxay si fiican uga soo horjeesatay in ay dhahday degrading waa ku raaxsanahay thank you waan kulay thank you I congratulate you on that I congratulate you inaad u sacabto minoo dhahday nope that doesn't make sense that's not what ina isticmaalo loogu talagalay if we're going to make some change-gana anaga nafteena aan ka bilaawno anagii akhlaaqdeena aan ka bilaawno first waxaad idhanayaa gabdhahan activistiga isku sheegay anybody gabdha kastoo activist ah we need u baahannahay gabdha wax bedelo wax fiican bedelo si fiican u bedelo wada fiican raaco laakiin uma baahnin dad aan ku shaqaysano aan ku dhahay iyagoo dadka intay nagu mashquulsan yihiin lacag aan ka samayno aan ka shaqaysano danteena aan ka raacno danta maxaa way ka raacaysa saa uguna shaqaysanaysaa it's all about you making some $100 iyo some lacag iyo mise grant aan dad ku xareysato mise profit whatever organization aan ku furato whatever ways of resources money ku helaysid that's all then you do whatever ku shaqaynayo oo dadku kugu soo jiidanayo oo lagu raacayo it's not about wax qalbiga ka soo go'ay oo adiga qalbiga ka sameynaysid it's not about view ma ahan it's not about qalbigaagi it's about daacadnimo it's about character it's about akhlaaq iyo respect to yourself it's about qof naftiisa soo fahmay oo emotionkeeda manage garayn karo qof emotionkiisa manage garayn karo naftiisa fahan naftiisa ka ilaali karo waxyaabaha dulmiga ah waxyaabaha xaqa aan ku ahayn oo baatilka ah
oo naftiisa kasoo adkaaday oo ku shaqaynayo actively marka qof kalena isbarbayn kara laakiin hadda adiga naftaada weli aad ka adkayn mise adiga naftikaaga weli on healingkaagii ku jirtida oo beginning stage aad tahay oo aad u adkaysan karin easily you got triggered in front of other people, then you start caytina bilaawaysid qaylinaysid oo disrespect samaynaysid oo you can't respect yourself, you can't respect your audience, you can't respect your family oo adiga baba lost tahay. Please waxaan ku dhihi lahaa just focus on yourself first. Markaa naftaadi ay meel soo gaarto ay mutma'ina noqoto then markaas dadka kale u jeesto markaasaa then positive xataa oo positive fiican samayn karta. Laakiin messagekayga positive u bedela because qoyan ma rabi inaan dhaho ninkayga hortiisa inaan ku dhaho ma rabi problem ay ii keenaysaa. maalmaha dhan waxaan dadka kana waxaa u sheekaynaa free-aatiin nin yo idin xukumin duleystay oo idin xukumin waxaa rabta sameey gurigaaga ka carar ninkaaga kuma xukumi karo. You're a free woman. You can't even dare to say qoyan in front of your husband. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي حقها نتصو ضلال كان هنك يستاجيو. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. إله ربي الرحمن وأنا قدرنا هنوني. إله ربي الرحمن ودتك حق وتاجن صوبدي إن أنك استاجنا معهن إن أنك استاجنا معهم كبرنا فتحي عبسية وحي سوقاتك كبرنا إيه ربطا مركه وأنا كوسو عام بحنا أنا سوشيال ميديا وكنا أنا سوق كفرة سوق كفرة العجا كوسا بيسو سي أديك أنا مركه profit كوسا بيسو let's make our profit. You can make money. It's all about that way. Make money ما كسوه جدنا لكن make money in a good way حتى دا money سمينيسد. Nobody's against that. لكن وحديدنا money باطل لو سمينا money اللي فيرناي ودتك اللي علينا دينتو دي أخلاق ضوضو أو دومينا علوم دي spiritual abuse لا stuff like that. I mean I can't begin talking about that and I will continue talking about this. This is passion وحنا this is وحنا إلهي innerkayga iga soo bixiyo aan inaan u dagaalamo xaqa because dhowr maraa multiples months aan fiirsanay Fadhiya Cabsiya's videos analyze garayna in my own house in my own aniga marka arkay every day it's getting worse qof kale iyadoo kale kusoo daynaa critical jaamacad dadka bixiya ku leedahay jaamacad dadka ka bixis maxaan sugeynaa waa kana fariiq group ku soo dartay qof dhan oo weyn oo maama ah oo ku leedahay Fadhiya Cabsiya weydiiyay waxa laga wado taana ay dhahday even though ay waxa marka aniga waxa ay sawir maayo but I will take it because saaxiibkayga xun waa ka saas waa bogta mus qofka rabta inaa ku dudaysato hadoo uu meel daala ku wado mus wax xun oo sameynay ina asqabsato leh ma you need to ask waxaas inay wax sax yihiin in kaleeto. Anyway جزاكم الله خير انت كوسو بيرتي channelka جزاكم الله خير انت قرب يقولينو بليز فافيا channel عجلك جزاكم الله خير waxa loo istaagay yahay ma aha in gabar kala disrespect garay wallahi العظيم Fadhiya khayra la jecla gabadhan khayra la jeclay nafseeda khayra la jeclay all of us khayra la jeclay laakiin waxaan diidaa maybe people are advocating without really knowing what they are advocating for. Maybe they know what they're advocating for laakiin they don't have knowledge ki or diinta ahaa mise you know based on mise naftiya dadka ka awood badan shaydaan inafa naga awood badan anaga dhan oo norka rabo inuu dinka qaladka nagu wado oo noo saxiixayo oo dhahay okay this is it nin let's just focus on the nin is our problem. Nin is what now community can hurt garayni nin bal ninka usoo laabana sheekadiisa anaga nafteena iska bilaawno first. Let us heal ourselves. أولا lagu soo dulmiyay saashegos right waa lagu soo dulmiyay 30 40 years 50 years dulma ku soo jirtay haddana maxaa in cimriga inta ka dhameysana haddana you gonna stress out waqtiga waxa ku luminaysaa in nin badashid nin change ka samaysid right. That's what message dulaysi leedahay because you want to tell dulaysi rabta in wax bartid. No, let's not waste your energy on that for right now. Let's focus on ourselves first kabacdi markaas whatever people heal garaynaysid arabtid inaa wax ka bedeshid u soo jeesan intaas ay nihlaani dadka oo rabaan inay changes sameeyaan in the community. naftaadi ku fakar first naftaadi ilaahay naftaadi Allah fahan ilaahay iyo purpose-ka duuda ku keenay ee naftaadi then after that is others dadka kale iyo dadka ala macaamuunaysa mujtamaca markaas ay imaanaysa insha Allah. جزاكم الله خير الف جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.